waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xogta dahsoon oo aynu ku soo qaadanayno qodobo ay ka mid yihiin Ciraaq oo ku dhawaaqday in la soo gabagabeeyay howlgalladii dagaal ee ciidamada shisheeye iyo joogitaankoodii waddanka dhaqdhaqaaqa Taliban oo dib u hagaajiyay afartameeyo diyaaradood oo ka mid ahaa kuwii Mareykanku sii ciladeeyay markii uu waddanka ka baxay iyo xiisadii Ukraine oo ka sii dartay sawirada dayax-gacmeedada oo muujinaya dhaqdhaqaaq weyn oo ciidamada Ruushka oo ay ka wadaan xuduudaha Ukraine Kiev oo ku dhawaaqday suurtagalnimada weerar kaga yimaada Ruushka iyo Joe Biden oo Ukraine kaga baxay daqiiqadihii u dambeeyay ku soo dhawaada barnaamijka la taliyaha amniga qaranka ee Ciraaq Qaasim al-Araji ayaa waxa uu ku dhawaaqay in si rasmi ah loo soo gabagabeeyay howlgalladii dagaal ee ciidamada isbahaysiga caalamiga uuna bilaabmay ka bixitaankoodii waddanka al-Araji ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay Khamiista maanta in la soo gabagabeeyay wareegii ugu dambeeyay ee wadahadalka isbahaysiga caalamiga oo bilaabmay sanadkii hore waxaana noo suuragal ah buu yidhi inaanu si rasmi ah ugu dhawaaqno dhammaadka howlgallada dagaal ee ciidamada isbahaysiga iyo ka bixitaankooda Ciraaq al-Araji ayaa intaa ku daray in xidhiidhka xulafada caalamiga ahi uu sii socon doono oo kana sii socon doono dhinacyada tababarada talada iyo xoojinta 2 bilood ka hor Major General Yahya Rasul oo ah afhayeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Mareykanka ee dagaalami kara ay bilaabeen inay ka baxaan waddanka waxaana la filayaa in dhammaadka sanadkan la soo gabagabeeyo qorshaha ka bixitaankooda waxa uu waqtigan ku macneeyay in ka bixitaanku uu dhacayo qorshaha u dhaxeeya taliska howlgalka wadajirka oo xidhiidh la leh wasaaradda difaaca Ciraaq iyo isbahaysiga caalamiga ee hogaaminaysa Washington kuwaas oo ay ku jiraan arrimaha laga wada hadlay wadida islaafsiga macluumaadka sirta tababarka hubaynta iyo qalabaynta labada dhinac afhayeenku waxa intaa ku daray in tiro la taliyayaal Mareykan ay qaab qarsoodiya ugu sii sugnaan doonaan xeryo ku yaala Ciraaq ammaankoodana ay xil saarnaan doonaan ciidamada Ciraaq waxa uu intaa ku daray inay jirto isku dubarid ku aadan gaarsiinta qalabka gaadiidka dagaalka iyo hubka ciidamada Ciraaq sidoo kalena la sii adeegsan doono diyaaradaha isbahaysiga caalamiga ee lagu bartilmaameedsado kooxda dowladda Islaamiga bishii Juulaay ee la soo dhaafay Baghdad iyo Washington waxay ku heshiiyeen wareegii afraad ee ugu dambeeyay ee wadahadalka istiraatiijiyadeed in dhammaan ciidamada dagaalami kara ee Mareykanka laga saaro Ciraaq dhammaadka sanadka 2021 war qoraal oo ay si wadajir ah u soo saareen xilligaasi waxaa lagu sheegay in xidhiidhka amni ee labada dal uu gebi ahaanba u gudbi doono dhinacyada la talinta tababarada iyo iskaashiga dhanka sirdoonka isla markaana aanay jiri doonin joogitaan ay ciidamada Mareykanka ee dagaalami kara ku yeelanayaan gudaha Ciraaq tan iyo 2014 Washington waxay hogaamisay isbahaysi caalami ah oo la dagaalama kooxda dowladda Islaamiga madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhaliilay NATO iyo Mareykanka dhoolatuska ay ka wadaan meel u dhow xuduudda dalkiisa Putin waxa uu sheegay in haddii la dayaco ficilada dhanka abaabulka ama haddii aan laga hortagin halisaha amni ee iman kara ay noqon doonto waxqabad la'aan iyo howlgabnimo dembiilanimo oo ay dowladdiisu la kulanto tani waxay ku soo beegantay xilli Moscow ay sii wado inay ciidamadeeda u dirto xuduudaha ay wadaagaan Ukraine sida ay sheegtay xukuumadda Kiev Mareykankuna waxay sheegeen inay dhanka Ukraine u soo direen hub isagoo Biden meesha ka saaray inay halkaa loo diri doono ciidamo Mareykan xilli muuqaalo ay qaadeen dayax-gacmeedadu ay muujinayaan dhaqdhaqaaqa militari ee Ruushka afhayeenka wasaaradda difaaca ee Mareykanka John Kirby waxa uu sheegay in toddobaadkan ay Ukraine heli doonto qaybo ka mid ah hubka fudud iyo rasaasta Mareykanka taasoo qayb ka ah buu yidhi xidhmo gargaar oo hore loo ansixiyay Kirby waxa uu intaa ku daray in Mareykanku aan weli gaadhin heerkii uu u diri lahaa ciidamo iyo qalab kale oo Mareykan dhanka Ukraine si ay u xoojiyaan xulafada Washington ugana taageeraan ka hortagooda Ruushka dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmitry Kuleba ayaa waxa uu yidhi waxaanu rajaynaynaa in Putin aanu doonin dagaal sababtoo ah waxay keeni doonaa dagaalkaasi inay ku dhintaan askar badan oo ciidamada Ruushka ka mid ah
kulan madaxeedkii Putin iyo Biden ee toddobaadkan ay ku qabsoomay dariiqada video conference-ka oo la isku afgaran waayay waxaa ka soo baxday dabicsanaanta Mareykanka iyo mowqifka liita ee ay la hortageen Ruushka isagoo madaxweynaha Mareykanku sheegay in haddii Ruushku qabsado Ukraine ay cunaqabatayn saari doonaan go'aanka oo loo arkay mid aad u hooseeya halkii laga filayay dowladda Mareykanka inay keento oo ku hanjabto inay ciidamo u dirayso waddanka oo difaaci doonto iyadoo khubarada caalamiga ee ammaanka qaarkood ku macneeyeen go'aanka Mareykanka mid dhabaha u xaadhaya inay Ruushku weeraraan Ukraine oo qabsadaan mar haddii Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ay caddeyn waayeen inay ciidamo difaaca u soo diri doonaan jamhuuriyadda Ukraine go'aanka Mareykankuna waa calaamad kale oo inoo muujinaysa hoos u dhaca awoodihii kala duwanaa ee imbaradoriyadii reer galbeedka ee Mareykanku horkacayay ee muddada qarniga ku dhow soo hogaaminaysa caalamka hoos u dhaca waxaa ka mid ah in dowladdii Mareykanku ay gudaha ka dumayso oo nidaamkeedii siyaasadeed iyo wada shaqaynteedii wax weyn iska bedeleen tusaale ahaan kulanka video conference-ka ee lagaga wada hadlayay mustaqbalka iyo jiritaanka jamhuuriyadda Ukraine oo ay ahayd inay Mareykanku ka difaacaan ciidamada dul fadhiya ee Ruushka ayaa kulanka waxaa madaxweynaha Joe Biden ku wehelinayay saraakiil dhanka siyaasadda iyadoo aan laga qayb gelin oo ay ka maqnaayeen dhinacyadii u xil saarnaa mowduuca lagala hadlayo Putin sida wasiirkii gaashaandhigga taliyihii guud ee ciidamada iyo taliyayaashii saldhigga ciidamada Mareykanka ee qaaradda Yurub waana calaamad bilow u ah dumitaanka dowladaha iyo imbaradoriyadaha mas'uuliyiinta kulanka fadhiyay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda gabadha madaxa ka ah hay'adda sirdoonka kaaliyaha amniga qaranka iyo xubno kale inkastoo ay kuwaniba yihiin xubno talada la gorfeynayo wax ku leh haddana fadhiga inoogama muuqdaan wasiirkii difaaca iyo taliyayaasha ciidamadu oo ay muhiim ahayd inay ka qayb galaan maadaama ay xaaladda laga shaqaynayaa soo dhaaftay diblomaasiyad oo ay ciidamo ishor fadhiya waxaana jiray inuu Ruushku hore u qabsaday qaybo ka mid ah Ukraine sida gobolladan bari iyo sidoo kale jasiiradda Crimea haatan waxaa la filayaa inuu ka soo weeraro ilaa 4 jiho sida dhanka jamhuuriyadda Belarus xuduudaha bari gobolladan uu hore uga haystay iyo jasiiradda Crimea qorshaha koowaad ee Ruushkana waxaa lagu sheegay inuu yahay inuu qabsado dhulka bari ka xiga webiga kala qaybiya Ukraine dhulka oo dadka degan aqlabiyadoodu ay asal ahaan ka soo jeedaan qowmiyadda Ruushka dhanka dalka Afghanistan dowladda ku meel gaarka waddankaasi waxay shaaca ka qaaday inay dayactirtay in ka badan 40 diyaaradood oo kuwa ciidamada oo ay naafeeyeen oo ciladeeyeen ciidamadii Mareykanku ka hor intii aanay dalka ka bixin dhammaadkii bishii August diyaaradaha la dayactiray waxaa qayb ka kuwa xamuulka kuwa dagaalka iyo diyaaradaha kale ee nooca helicopterta waxaana talaabadan ay ku soo aaday iyadoo dowladda ku meel gaarka ee waddankaasi ay dadaal ugu jirto dib u dhiska ciidamadeeda qaar ka mid ah injineeradii iyo farsamayaqaanadii ciidankii dowladdii hore ee Afghanistan oo la howlgeliyay ayay u suura gashay inay dib u hagaajiyaan diyaaradaha ciidamada ee Mareykanku sii kharibay iyadoo ilaa haatan la hagaajiyay 40 ka mid ah diyaaradahaasi sida ay ku dhawaaqday xukuumadda Taliban iyagoo kooxda farsamayaqaanaduna sheegeen in hawsha ay ku guuleysteen inkastoo ay aad u cuslay waxaana ay sheegeen in markii hore ay wada jeegareeyeen diyaaradaha dabeetana diyaaradihii sida weyn wax u qabay ay ka dhigteen spare part ay ku hagaajiyaan diyaaradihii kale ee waxyeelada gaadhay ay sahlanayd xukuumadda ku meel gaarka ee Afghanistan waxay ahmiyad siisay dib u hagaajinta ciidamada gaar ahaan diyaaradaha iyo ciidamada cirka oo ay ku sifaysay inay lagama maarmaan u yihiin adkeynta ammaanka waddanka sidoo kalena dhismaha ciidanka cirku qayb ka yahay dheelitirka dhanka difaaca ee gobolka Afghanistan ku taalo oo ay ku yaalaan 5 ka mid ah 13 dowladood ee military ahaan caalamka ugu horeeya sida Ruushka, Shiinaha, Hindiya, Pakistan iyo Iran